Bismillaahi Raxmaani Raxiim macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran shirkadda Dallas Real Estate walaalayaal soo dhowaada ku soo dhowaada gacmo furan ku soo dhowaada qalbi furan ku soo dhowaada adeeg hufan oo idin raali geliya. Haddaba walaalayaal sidaa nooga barateenba waxaa maanta mar kale idiin soo gudbinaynaa guri iib ah. Walaalayaal ku soo dhowaada daawasho wacan ka faa'iidaysi wacan. Waxaa rajaynayaa inaad ka heli doontaan insha allahu tacaala. Walaalayaal waxaa iib ah gurigan hadda aad aragtaan oo ah guri dabaq ah, weliba waa guri dabaq ah oo dhex ka dhis ah. Hadda waxaan maraynaa wareegga guriga si aan idiin tusno. Meeshaan hadda aragtaan walaalayaal waa qolalkii service-ka ahaa. Dhinacan kalena waxa naga qabanayo waa guriga dhex ka dhiska ah oo aan rabno inaan idin tusino sida derbiga ugu wareegsan yahay oo afarta dhinac uu derbiga ugu wareegsan yahay. Guriga dhex ka dhisaya waxaa la yiraahdaa marka derbi inta la dhiso la soo wareejiyo ganjeelka loo yeelo, haddana kadib guriga dhexda laga dhiso haddii uu yahay dabaq iyo fillo waxa uu yahaba. Guriga noocaas markuu u dhisan yahay waa guri dhex ka dhis ah. Dabaq hadduu yahay waa dabaq dhex ka dhis ah, fillana hadday tahay waa fillo dhex ka dhis ah. Dhismaha noocaas markuu yahay waa qurux badan yahay, waxaana badanaa laga dhisaa dhulalka cabirkooda uu weyn yahay. Marka guriga dhex ka dhiska dhigaysa waxaa u baahan tahay inaad dhul aad u weyn aad haysatid. Faa'iidooyinka uu leeyahayna waxaa ka mid ah dariishadaha guriga iyo albaabada bannaanka uma furno. Guriga waxaa ku wada wareegsan derbi, marka xagga ammaanka iyo xagga asturka inta waa uu ku fiican yahay. Guryaha noocaana waxaa dhisa dadka reer beledka ah iyo dadka dhaqaalaha haysto. Soo dhowaada marka walaalayaal, gurigan cabir ahaan iyo dhismo ahaan inta waa uu fiican yahay iyo xaafad ahaan meesha uu ku yaallo. Walaalayaal waxaan guda gelayaa xogta gurigan dhex ka dhiska ah ee iibka ah oo dhammaystiran insha allahu tacaala. Ka bogasho wacan. Walaalayaal haddii aan ku bilaabo meesha uu ku yaallo, gurigani waxa uu ku yaalaa magaalada Muqdisho. Magaalada Muqdishona waxa uu uga sii yaalaa degmada Cabdicasiis oo ka mid ah degmooyinkii hore ee qadiimka ah ee magaalada Muqdisho. Sidoo kalena ah degmo aad u qurux badan, meelo istiraatiiji ah ay ku yaalaan. Gurigan hadda markaad joogtid xeebta Liido kuma dheera. Walaalayaal Cabdicasiis wuxuu uga sii yaalaa xaafadda Mirnaayo. Marka aad joogtid isgooska Mirnaayada ayaa waxaa u leexanaysaa dhankaas iyo laamiga aada Kawaan Bari. Isgooskana kama fogaanaysid. Marka aad joogto meesha loo yaqaano Shaamow ayaa waxaa u leexanaysaa dhanka Shaamow oo ah dhanka badda. Waxaa ka xiga laamiga Mirnaayada keliya guriga warshadda Shaamow loo yaqaano. Waxa uu markaasi laamiga ka naqanayaa gurigan dabaqa ee dhex ka dhiska ah booska labaad ama sugunta guri. Hal guri keliya ayaa laamiga ka xigo ama hal dhul. Marka walaalayaal soo dhowaada ka faa'iidaysta. Waa runtii istiraatiiji ama fursad guri birimo ama sugunta ah. Waa guryaha noocyada loogu jecel ilaa saddexaadka xataa ma xumo. Sidoo kale walaalayaal waxaan ka dheereen gurigan xeebta Liido iyo laamiga kale ee asagana badda gala. Marka waxaan dhihi karnaa waa dhul badda iyo laba laami oo waaweyn isku haysta ama u dhow. Xaafad ahaan walaalayaal xaafadda uu ku yaallo waa xaafad aad u qurux badan. Guryaha sidan oo kale ah cabiradooda waa weyn yihiin, dabaqyada dhex ka dhiska ah ay ku badan yihiin. Waa xaafad weliba mustaqbal fiican leh oo laga yaabo mustaqbalka dhow inay noqoto meelaha ugu shidan oo safaaradaha iyo xarumaha waaweyn laga furo. Magaalada mar walba waxay u soo qurxoonanaysaa mustaqbalka dhanka xeebta. Walaalayaal haddii aan u gudbo xagga cabirka uu ku fadhiyo gurigan iibka ah. Gurigani waxa uu ku fadhiyaa cabir ah 30 lagu dhuftay 20 ama taranta berfinti hadba sidaa u taqaanid. Dhinacna wuxuu u yahay 30 mitir. Dhinaca kalena walaalayaal wuxuu u yahay 20 mitir. Waa ballac iyo dhirir oo kala ah 20 iyo 30. Waxaa dhihi karnaaba waa cabir aad u weyn oo laba boos ah
dhulka noocan oo kale ah waa iska 2 boos. Walaalayaal haddii aan u gudbo xagga qiimaha iyo lacagta lagu rabo gurigan iibka ah, walaalayaal gurigani waxaa lagu rabaa 250,000 oo doolarka Mareykanka ah oo isku dhamaad ah. waa macal dalaal iyo heshiis. walaalayaal waxaa la yiraahdaa beec meesha uu ka bilowday kuma dhamaado. qiimaha waxaa ka furan gorgoro wixii macquul ah baa la idinka dhimayaa insha Allah tacaala. lambarada meesha ku qoran nagala soo xiriira. haddii aan nahay shirkadda Dallas Real Estate waxaan diyaar u nahay inaan idin soo tusino. haddii aad ku qanacdaanna kadib qiimaha laga heshiiyo. walaalayaal haddii aad maqan tihiin lambarka WhatsApp-ka waa naga soo wici kartaan. faahfaahin dheeri ah ayaa idinka siinaynaa. kadibna qof wakiil ah ayaa soo dirsanaysaan. markaa guriga ku qanacdaanna qiimaha ayaa laga heshiinaa insha Allah tacaala. walaalayaal haddii aan u gudbo xagga wadooyinka uu leeyahay gurigan iibka ah, gurigani walaalayaal waa hal jidle. waxaa hormara hal wado oo weyn. saddexda dhinac ee kale waxaa ka xiga guryo dad ay leeyihiin. haddii aan walaalayaal ka hadlo dhanka oo u jeedo ama dhanka wadada ay ka marto, gurigani walaalayaal waa waqooyi ujeed. waa hal jidle waqooyi ujeed ah. laamigana sugunta ka ah. wadana way hormartaa. laamigana hal guri oo kaliya ayaa ka xigo. walaalayaal haddii aan u gudbo ama aan ka hadlo dhismihiisa iyo qaabka uu dhisan yahay, gurigani waxa uu ka dhisan yahay walaalayaal ama uu yahay dabaq dhax ka dhis ah oo 3 biyaano ah, qolal service ah leh, sidoo kale meel hool ah ayuu leeyahay. walaalayaal haddii aan u gudbo ama aan ka hadlo xagga dukumiintiga, gurigani walaalayaal waxa uu leeyahay dukumiinti saxan oo dhammaystiran, kaas oo ah rasiid iyo sabarloog. waxa uu leeyahay dukumiintiyadii hore ee 91 ka hor. sidoo kale walaalayaal warqadaha way u dhammaystiran yihiin. dukumiintiga waa dhammaystiran yahay waana saxan yahay. warqadaha muhiimka ah, canshuuraha iyo wixii la midka ah way u dhan yihiin. waa rasiid iyo sabarloog original ah. walaalayaal haddii aan nahay shirkadda Dallas Real Estate waxaan diyaar u nahay inaan dukumiintiga kuu geyno ama idin geyno nootayadii aad dalbataan si la idinkaga hubiyo saxaanshaha dukumiintiga insha Allah tacaala. meesha hoolka idin sheegaya waa kana. waa meeshaas quruxda badan leh. gurigan walaalayaal haddii aan ku laabto xagga dhismaha, waa dabaqaas. dhismihiisu weli waa macquul, kaliya dayactir ayuu u baahan yahay. dabcan injineer ayaa keenaysa oo xaaladda guriga warbixin kaasi insha Allah tacaala. walaalayaal haddii aad xaafadan ama dhammaan xaafadaha degmooyinka gobolka Banaadir ku leedahay dhul ama guri beecan hala soo xiriir. sidan oo kale ayaan kugu beec geenaynaa insha Allah tacaala. walaalayaal haddii aad dhul ama guri ugu baahan tihiin xaafadan iyo dhammaan xaafadaha degmooyinka gobolka Banaadir nala soo xiriir. sidoo kale waan kuu helaynaa insha Allah tacaala. ugu dambeyntii walaalayaal waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka iyo ku xirnaanshaha shirkadda Dallas Real Estate. walaalayaal waxaan si sharaf leh idinkaga codsanaynaa inaad kanaalka subscribe noo saartaan, gambaleelkana aad furataan idinkoo mahadsan si aad ula socotaan muuqaalada aan mustaqbalka soo gelinayno insha Allah tacaala. facebookna follow inaga soo dhaha. waa mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.